سعيد عبد الله الدني iyo Axmed Maxamed Islaam Madoobe labada hogaamiye dowlad goboleed oo garab ka helaya hogaamiyaal miisaan culus oo iskugu jira madaxweynayaal hore ra'iisul wasaareyaal iyo siyaasiyiin saameyn leh ayaa ku adkaysanaya in shirka ay la qaadanayaan dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud oo ka dhaco gudaha Xalane oo ah aag ay degan yihiin wakiilada beesha caalamka magaalada Muqdisho ayaa toddobaadkan iyo kii aynu ka soo gudubnay la circiraysa shirar kala duwan iyo kulamo siyaasadeed jihooyin kala duwan leh balse shirarka iyo kulamada siyaasadeed ee ugu muhiimsan ugu weyn bulshada indhaha ku wada hayso ayaa ah kulamada u dhaxeeya labada madaxweyne dowlad goboleed Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland iyo Axmed Maxamed Islaam Madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo siyaasiyiin kale oo iyagu waaweyn yihiin madaxweynayaal hore balse dhammaantood huban magaca golaha mustaqbalka Soomaaliya dhinaca kale maadaama shirkan ay hogaaminayso dowladda federaalka Soomaaliya dib u dhaca ayaa loo sababeynayay maqnaashaha madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud balse hadda madaxweynaha ayaa maanta dib ugu soo laabtay dalka iyadoo xogaha hoose ee la helayo ay sheegayaan in xafiiska madaxweynaha uu wada qabanqaabadii ugu dambeysay ee shirka u dhaxeeya iyaga iyo labada hogaamiye dowlad goboleed Puntland iyo Jubbaland oo ay weheliyaan saaxiibadooda mucaaradka oo ay ku wada jiraan golaha mustaqbalka si kasta ahaataba madaxweynaha Soomaaliya oo dadaal ugu jira sidoo shirkan si degdeg ah ugu qabsoomi lahaa haddana waxaa horyaala caqabad weyn gaar ahaan doonista dooqa goobta shirka uu ka dhacayo oo ay doonayaan mucaaradka golaha mustaqbalka Soomaaliya maadaama rabitaankoodu yahay inuu shirku noqdo mid ka dhaca gudaha Xalane halka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu arko rabitaanka iyo doonista mucaaradka ee ah ka dhicista kulanka gudaha Xalane mid raawicaysa sumcadda iyo sharafta dowladda Soomaaliya sidoo kalena bixinaysa sawir qaldan oo la xiriira in amniga xafiisyada ugu sareeya dowladda aanan la isku halin karin isku soo wada duub madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kadib safar uu ugu maqnaa dalka Itoobiya maanta oo ay taariikhdu ahayd 16 Febraayo sanadka 2026 dib ugu soo laabtay gudaha dalka waxaana la wada sugayaa oo isha lagu wada hayaa qaabka uu xalin doono maarayn doono khilaafka mucaaradka iyo tabashooyinkooda la xiriira hanaanka iyo sida ay wax u wada dowladdiisa marka la eego nidaamka doorashooyinka wax ka beddelka dastuurka iyo doonista xukuumaddiisa ee ah in dalka ay ka hirgasho doorashooyin qof iyo cod ah